بسم الله الرحمن الرحيم إلهي خير كان وافجيو ما أنت بيشو تايتو دبيتون كمية إلهي وحن قوم مهاتنا غيا ومدي صوماليات دورشدي روحان كاكا الشيء نبت كليدا وسو دميهي حسن الشيخ وانو أقوان سولين هاينا وحن لا هاي إلهي حلكها هكو فضوديو انتا كدب قطبدي سي مشرحنمو حسن الشيخ مدحوينها الصومالية wuxuu halkudheg uga dhigay siyaasad aan aarsi lahayn iyo Soomaali oo heshiisa adduunkana la heshiisa labada erey ayaa igu dhiirigeliyay inaan waxoogaa talaa madaxweynaha halkan ka siiyo talada koobaad sagaalkii madaxweyne ee Soomaaliya soo maray aad ku jirto runtii waxay ka midaysnaayeen cadaadinta Soomaaliland iyagoo ku cadaadinaya waa naga tagteen waa naga goodeen maanta ilaahay mahadi weey hadaad leedahay siyaasadayda aarsi waa ka mamnuuc cidna fikirkay qabto looma dhibi karo madaxweyne taasi waa fikrad ay qabto Soomaaliland inay dawlad gaar ah samaysato marka waxaan ku oranayaa ku ixtiraam halku dhigaagaan rumee waxaan kaloo madaxweyne ku sheegayaa dhaqanka Soomaalida sideedaba haddii walaalkaa kaa dudo oo kaa tago colaad lagama dabageeyo iyo cadaadin xaq wuxuu kugu leeyahay inaad soo maslaxdo wuxuu doonayo uu yeesho hadal macaan ka dabageyso marka taan wax ku leeyahay madaxweyne cadaadintaasi wuxuu bay sii kala fogeynaysaa isdil bay keenaysaa cadaadintaana ka istaghfirayso oo hore madaxdu isticmaashay qodobkayga labaad waxa weeyaan cidna hortu khasab looguma talin karo hadallada sagaalka madaxweyne ka sinaayeen ama se runtii cadaadintooda waxa ugu badnaa afka waxay sagaalka madaxweyne aad ku jirtaa ka sinaayeen Soomaali waa muqaddas midnimadeedu ilaa iyo seyl aniga xukuma ana ku taliya ayaha kama tashan kartid markaan isku soo minguuriyo macnaha ay sameeyeen waxay ahayd khasab aan kugu talinaya madaxweyne taan ka noqon karo lahaa Soomaalidu khasab isuma talin karto Soomaalida lama khasbi karo runtii Soomaalida waa la gumeystay laakiin ta khiyaama lagu gumeystay Soomaaliin leeyahay khasab aan kugu talinaya yeel ma yeeli kartay geeri bay Soomaalidu ka xigtay sidaba waxay igu marqaatiya gabaygii jaamac gaalo mitid farayar midhihii bataa kama macaashaan ismaroorinta reer wacays mahadin maayaan ma hartay mashiinadu qarxaan moodka loo siman maansidaas waxay sheegaysaa jibsinta ugu yar ee Soomaaliyeed qabiilka u badan inaanu muqoonin karin oo khasab ugu talin karin marka taasi suuragal maaha madaxweyne khasab baan ugu talinaya Soomaaliland iyadana ka istaghfirullah qodobkayga saddexaad waxa weeyaan hadalladiinu madaxweynadiina waxay ka sinaayeen midnimo Soomaali weyn baan doonayaa midnimo doonaya midnimada runtii mar loo helana way jirtay Soomaaliland waxa ay ku lumisay xorriyadeeda oo intii dawladeeda xamrigiisa bay tiri noo taliyo oo nagu raaco shanta Soomaaliland isla doono Soomaali galbeed waxay samaysay intay dagaalanto tuuladii ay xoreysay inay taa xamra looga taliyo markaas loo helana maanta cid u helani ma jirto madaxweynaha ku daali Djibouti markay aragtay labadii isku darsay ay soconayaan calan iyo dawlad gaar ah bay samaysatay Soomaali galbeed waxay samaysatay dawlad deegaan u gaara haddii ay xataa Itoobiya ka goodana dawladeedaas bay dhisanaysaa maanta diyaaru maaha midnimadii NFD-na gidaar baabal inagu kala xidho ogtiin marka cid u diyaari ma jirto midnimadaas mid kale oo loo diyaari heban madaxweyne ku sheegaya oo macna badan ku jirto waa shanta Soomaali oo mid waliba calankeeda sidato oo madal isugu timaado oo wax wada qabsato oo istifaacdo oo ciidan ka dhaxeeya samaysato taa weeye ta maanta la heli kara waxa ku naaloonaya ama uu lahaa farmaajo mar labaad iyo midnimo war ummadan Soomaaliland waxa gaadhay wax lagu la dhici kara maaha
midnimo siyaasiyiinta Soomaaliya had iyo jeer wax ka sheekeeyaan dil wadareedyo dhacay xasuuq baahsan oo dhacay boqolaal qof oo xadhig lagu xirxidho garbe lagu dubiyay waxaaba wax ka daran ba ka dhacay Soomaaliland oo ka qaraway waxa runtii la soo ururiyay Oromo iyadoo lagu sheegay qaxooti waxa la dejiyay xeebaha Soomaaliland waliba wax aad loogu ururiyay magaalada Berbera oo ah isha dhaqaale Soomaaliland waxa la jeeyay biyoolay waxa la geelokor waxa la dejiyay bixin waxa la dejiyay ari cadays waxa la sabaacad waa lagu wareejiyay qaxootiga markii la dejinay Oromada ah dadku markay yaabeen oo dadkan Soomaaliya ma waxa ay ku sheekeeyeen siyaasiyiintii koonfureed ee horkacayay Soomaalidu waa laba mid waa Soomaali wariyaayo waa inagu waxaan ku hadalnaa Soomaali midna waxa la yiraahdaa Soomaali abo oo af kale ku hadasha anigu ma hayo taariikh Soomaali abo la yiraahdo ninkii hayaysaa ka sheekayn waxa si aan u arkayaa in dadka lagu laqsiinayay dhulkooda in lagu dejiyo Oromo ereyga loo isticmaalo erey jiraba uma haystaan waqtiga ka horna wuu maqal cidii maqasheeda ka sheekayn marka qaxootigii markii la dejiyay waxa loo siiyay hubba loo qaybiyay xoolo loo iibiyay dhulkii wanaagsanaa dhama beero looga sameeyay biyaha iyana waxay ku dhaqaaqeen amarkii la faray inay xasuuqaan dadkii deegaanka ahaa inay xoolaha ka qaadaan inay barakiciyaan ilaa Berbera iyo Sheekh oo 7 kiiloomitir waxa dhacday mar iyo gacanta ku dhigeen oo dab Soomaaliland ka baxayeen qof Soomaaliland ba joogin reer miyiga Soomaaliland waxay difaac ka galeen buuraha Golis silsilada Golis halkaas uu dagaal ku socday oo isku dayay inay buuraha guurto xoolo ka soo qaadaan oo ay dhacday mar inay suuqsada ka qaadaan marka runtii halkaas la isaga difaaco la iska celiyo markii dambena lagu jabiyay marka ummad dhulkeedii inta laga barakiciyay oo laga tirtiray ummad kale lagu beeray mar labaad iyo midnimo ma liqi karto madaxweyne taasi mid maanta taalama waxaan kugula talinayaa inaad calankii Soomaaliyeed ba haysataa inaad samayso madal Soomaalidu isugu timaado iyadoo mid waliba calankeeda dawladnimadeeda wadato halka lagaga taliyay wax loo qabsan lahaa sidii cadow la isaga dhicin lahaa waayo Yurub af ma wadaagto diin ma wadaagto dhaqan ma wadaagto haddana mid kamid ah hadii gacan la saaro inta kale gacanta ugu saarayaan sharciina adduunka ugu haysta taa mid ka qurux badan oo dhaqan ku fadhiyo heli kara waxaan kugula talinayaa maanta ka raadi ereyga isticmaal Soomaali heshiisa waxaad ka raadisaa madal ay isugu timaado Soomaaliya mid waliba calankeeda dawladnimadeeda wadato sida wax u qabsan lahaayeen waxaan ku gabagabeynayaa hadalkayga madaxweyne sidii farmaajo waqtigii kaaga lumin inta yar lacag ku soo gashay inaad Hargeysa Burciyo Laascaanood ku qaybiso inaad waftigii Soomaaliland meel u baxaa wafti ka daba dirto in cidii Soomaaliland wax yar soo siisaba xiriirka uu goyso waxa ay waqti kaaga lumine wax madaxweyne ku yaala inaad dawlad caafimaad qabta ka dhisto koonfurta Soomaaliya oo qorshaha koobaad qorshaha labaadna inaad ka fakirto si Soomaaliya isugu iman lahayd iyadoo calankeedu mid waliba wata wuxuu wada qabsan lahaayeen cadawga si difaaci lahayn labadaas ku tamari madaxweyne halka ka dayday ereyga aad leedahay Soomaaliya oo heshiisa adduunkana la heshiis wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh